fududeeyo wax badan baa hor yaalla dalkan waxa lagu celiyay 94kii hubka dhigis baa hor taalla hubka dhigis inuu hubka dhigis sameeyo oo dadka hubka loo dhiibay hubka ka dhigo waxa hor taalla inuu dhaqaalihii dalka dubay soo celiyo waxa hor taalla ummadeena qalbigeeda la kala kixay inuu qalbigooda isu soo celiyo waxa hor taalla dhaqaalaheena oo ah dhaqaalaha ugu sarreeya geeska Afrika halkaasuu taagan yahay waxa hor taalla wixii ummad wada lahayd baa ilaa maanta lagu takrifarayaay inuu ilaaliyo cabdiraxmaan qabiil baa waa nin maxay qaran ragayna la tartamaya maanta waxay sii wadaan kordhin bayba doonayaan maalmahan kordhin bay wadeen way yaabeen soo yaabin doorashaa loo dhaqaaqay xilliga kordhin laga hadlayo doorashaa loo dhaqaaqay aad iyo aad baa u mahadsantihiin ururada bulshada ee xagga dambe taagan calaamadiinii waaweynaa iyo boodharkiinii la soo baxa goor dhow ayaynu barnaamijka bilaaban doonaa bahdii suugaantaan idinku wareejinaya heesihii la yaabka lahaa halkan umaydaan iman inaad sacabka tuntaan halkan umaydaan iman inaad istaagnaataan halkan waxaa u timaadeen inaad dareenkiina ku muujisaan inay isbeddel rabtaan waxaa u timaadeen halkan in aad dalka badbaadisaan waxaa u timaadeen idinka iyo kumanaan kale oo gobollada dalka jooga in ay maanta tusaan rag badan oo ummaddana waxba u haysan in ummaddani tahay ta magaceeda iyo codkeeda lagu soo baxo madaxweynena lagu noqdo waxaan ilaahay ka baryayaa horaan idinku sheege maalintaa ka duwan inaan isugu dhimaadno oo cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi inuu horkacayo isagoo madaxweynaha jamhuuriyadda somalilanah madaxweynihii midnimada madaxweynihii isku haynta madaxweynihii ummaddan gaadhsiin lahaa waxay doonayaan 34 sano ka hor baa laynagu celiyey madaxweynaheenna waxyaalo badan baa hor yaalla ilaahay ha u fududeeyo wax badan baa hor yaalla dalkan waxa lagu celiyay 94kii hubka dhigis baa hor taalla hubka dhigis inuu hubka dhigis sameeyo oo dadka hubka loo dhiibay hubka ka dhigo waxa hor taalla inuu dhaqaalihii dalka dubay soo celiyo waxa hor taalla ummadeena qalbigeeda la kala kixay inuu qalbigooda isu soo celiyo waxa hor taalla dhaqaalaheena oo ah dhaqaalaha ugu sarreeya geeska Afrika halkaasuu taagan yahay waxa hor taalla wixii ummad wada lahayd baa ilaa maanta lagu takrifarayaay inuu ilaaliyo cabdiraxmaan qabiil baa waa nin maxay qaran wallahi ana idin bala qaaday waa nin qaran anigu maanta maalinteedii waa ka soo horjeeday laakiin maataan gartay maanta 6 bisha September 2018 maanta oo kale gabar mikrofoonka haystay anigoo musharrixii hore ee maanta madaxweynaha u ololeynaya ummaddani waxay u baahan tahay cabdiraxmaan ummaddani cabdiraxmaan u danayn mayna inagaa danaysanaynaa soo sidaa maaha inagaa danaysanaynaa mustaqbalkeenaynu ku danaysanaynaa carruurta dhabarka ku jirtaiyo kuwana wadnaynu u danaynaynaa halkaynu marayna waa ogtiin farteen iyo inaan ciirin gurigaa shaqaalahan ku qoranahay gurigaa shaqaalaha oo codkaygu yaallaa halkaasaa inta badan aynu ku guraynaa aynu cabdiraxmaan ugu guraynaa rag badan baynu indhaha soo saari doonnaa codku waa waxa laysugu iiliyo tiro badnaaniyo inagu lacag ma bixinno inagu beeraha xorriyadda lacag kuma bixinno guryaha ma garaacno ma yidhaahdo $100 baanu idin siinaynaa ma soo kaxayno shaqaalaha dawladda ardayda ma fasaxno oo ma yidhaahdo soo buuxiya dareen shacab baynu ku nimaadnaa aad iyo aad baa u mahadsantihiin dadhow baa madaxweynuhu soo gelayaa waxay noo badana 13 ilaahay haydin dhowo waa dhowrsantihiine dadka soo galayana ha loo baneeyo ha lays ixtiraamo qof waliba qofka ku xiga ha ixtiraamo walaalnimaha ku soo dhoweeyo ka meeli ka bannaantay ha u banneeyo kuwa soo galaya ha loo banneeyo waddada ha loo banneeyo ciidamada amnigana la shaqeeya waa booliiskeenii inagaa leh waa ciidankeenii waa kuwa aynu 4% u kordhin doona boqolkiiba 4% mushaharkooda boqolkiiba 4% ayaynu u kordhin doonaa waa tiirka koowaad ee xisbiga sidaasayno balana